بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخياري. وبرنامج كيني دبع دقاله مقايها فرها بدن لها جامعة عقارن كلية الدان دبقاله دبع دقاله ناسو هو يواي مسا دبع هندسو لما يستركا قاجدة انتا سو مقعه أصحابي هكو وريرينا وحادكا قادتان كلية لما يستركا قاجدة قيبت الدقنمي دا أسكا إيا حمانتا إيا دبع دقاله inta kale waxaa idiin fasili doona insha Allah roobka daa raiskiisa yaa idiin fasili doona. Hadda waxaynu qaadanaynaa u dhamaystirka gaajada ama dhibic dhaqaale ama inaga oo wadankeena 12 saacadood wax la beeri karo 12 bilood wax la beeri karo oo baraf aan lahayn oo cadceedi u soo baxdo 12 bilood ikhyaaray reetolkayow reer Soomaaliyow afka Soomaali ku hadlow maxaad uga sugtaan qabadin qaarad aan barafba ka bixin ama cadceed buu soo bixin miyayna ish iyo akhas iyo uf iyo magacyo fara badan iyo kuwa cusub oo la raadiyo maynan ahayn. barnaamijkan dhibic dhaqaale wuxuu idiin wadaa ikhyaaray barako insha Allah. waxaan doonayaa ummadan Soomaalida afka Soomaali ku hadasha meeshay doonaha joogaan gaar ahaan ku wajahan iminka gobolka Jigjiga ee beeraha aad looga qodi jiray ka awow odayaashii da'da ahaa inta ka nool beeraha qodan jiray iyo jaamacadda Jigjiga University iyo xafiiska researcher iyo intii kalaba ee soo raacda waxaan doonayaa ama aan codsanayaa oo idinka rabaa ikhyaaray in aad ii sheegtaan ma jiraa inta waxaad cuntaan sida qabadinka galeyga arabikida hadhuyaraha sareenka shumburada wax kasta oo deegaankiina ka baxa oo cuntaan meeqa dhibic roob ayuu ku noqdaa biqil mudac ma raba in ka badan mudac af Soomaaliga ninka garan waaya mudaca waa inta u horeyso soo baxo una laba dhagood noqon waa marka u horeyso dilaaco oo afka la soo baxo una laba dhagood noqon oo hal dhag ah oo mudac ay yahay meeqa dhibic roob ayuu ku biqlaa. ikhyaaray dhibicda roobka lafteeda ayaa kala weyn oo tii guga iyo tii xagaaga iyo tii karanta iyo tii dayrta iyo magac fara badan oo kale ay noo sheegayaan khubarada afka Soomaaliga ku xeel dheer way kala weyn yihiin dabcan way kala badan yihiin way kala culus yihiin. hadda waxaynu ka hadlaynaa si caamatan oo general ah ayaynu uga hadlaynaa hadhow baynu sii sarifaynaa insha Allah. ikhyaaray intaas oo la isku daray waxaan ka rabaa dhibic roob meeqay ku biqishaa cuntada aad cuntaan inta kale jaamacadda ayaa dhamaystiri doonta. intan aan idinka rabo waxa weeyaan intan su-aashan dadku way ila yaabaan iyagoo yaaban bay ila yaabaan waxay soo qaataan inta badan kuwa wax bartay midan internationalka ah ee adduunku wada yaqaano. ikhyaaray sheekadu sidaa ma aha. waxaan idin siinayaa mid kasta koob baan siinayaa koobkaasaan caradii jarareed iyo caradii faafan iyo caradii hawdka iyo baraka lagu daray oo kale ayaan idinku shubayaa. koobkii baan idin siin aad xansharka ku cabi jirteen ama kafayga ama biyaha aad ku cabayseen ciidda 3 meelood iyo tu kale oo la isku darayna waan idin siin. ciidii baan idin siiyay okay koobkiina waa idin siiyay nin kastana wuxuu dalbadaan siiyay oo free ah arabikhi galey shumburo heed wadaba sareen ayaan siiyay. inta markaan farta ka saaro meeqa dhibic oo rooba ayay ku biqishaa ikhyaaray. bulshadan waxaan doonayaa beeraha qodanaysay iyo kuwa wax bartay iyo xafiiska researchka in la ii helo arintan haddaan lahayn ikhyaaray haddaan lahayn in mar labaad la raadiyo laga raadiyo kuwa baadiyaha ah haddayna magaaladii haynin. haddii la waayo maxay noo diiday ikhyaaray hadda inaynu samayno meel goob aynu ku baadhno maxay noo diiday saacadan waqtigan sanadkan inaynu ku ogaano roobku uu soo socdo insha Allah. okay maxaase u diiday ikhyaaray xafiiska researchka arintan inuu sameeyo maxaa u diiday Jigjiga University
inay arrintan samayso. maxaa u diiday odayaashii beeraha qodanayay ka awow ee banka ee iska dhaxlay 100 sano ilaa wiilwaal ka hor beeraha qodanayay maxaa u diiday hal nin ama hal hooyo ah inay tijaabiso. maxaa u diiday hal gabadhi inay tijaabiso beeraha idinka ba'a ee biyo la'aan u ba'a sanadkii waa imisa, tacabka idinka galay waa imisa, xoolaha iyo shinnida idinka galay waa imisa. xanuunkan joogtada ah maxaa xal loogu raadin waayey loo helo xal. haddaad khasaarto maxaa aqliga saliimkii uu u fikeri waayey uu odhan waayey maxaa xal ah. haddaba ikhyaaray waxaan idiin hayaa xalkii. waan idiin imid tigir imaydaan bixinin, kharash kama bixinaysaan, dowladda lacag kama rabo, waxaan ahay volunteer, waxaan ahay iskaa wax u qabso. waxaan ugu talagalay 1 sano oo kaamila inaan wax idin baro oon ituso oon ka bilowno toga jarareed, toga faafaneed iyo hawd 3 meeloodba in aynu ka samayno projecti bilow ilaa dhammaad. haddaba dowladdiiyey, dhallinyaradiiyow, ardaydiiyow, shacabkiiyow, odayaashiiyow, culimadiiyow, ayeeyooyinkiiyow, ummaddan afka soomaaliya ku hashay ee 3 meelood deganow. waa maxamed cismaan cali oo idin leh xigmaddan anaan idin wada, kharashkana anaa wata. okay, barnaamijkana waxa weeyaan waxaan ku fulinayaa barnaamij barakaysan intaydaan ku bilaabaynaa. okay, intaa ka bacdi balaanka aan wataana dowladda ayaan u bandhigayaa. ha sugina xoolo kale oo meel kale idinka yimaada baraka ma leh. ha sugina qabadin la idiin keeno baraka ma leh. waxaan idiin wadaa barako khayr qabta iyo aqli khayr qaba iyo beer aan ba'ayn insha allah. waxba idinkama rabo, waan idin barayaa. balaankana dowladdan ka rabaa inayga yeesho. balaankuna waxa weeyaan waa projectigan aan wato oo nin kasta degaanka uu degan yahay, hadday tahay qoys iyo hadday tahay gobol, 9 gobol ee Soomaalidu degan tahay, in 9 meeloodba aan bixiyo 150 cent. nin kasta oo qurba joogana uu bixiyo 150 cents. intaa marka qurba joogtu bixiso anigu 150ka accountiga ayaan furay. waxay lacagtii taalaa kaah bay taalaa. okay, 9 gobol way isla eg yihiin 150 cents. okay, dowladda waxaan ka rabaa inay ansixiso oy shacabka u sheegto accountiga meeshii laga furi lahaana ma kaah baa lagu daayaa, ma dahabshiil baa lagu daayaa, ma bangi baan kasii furaa. waxay u taalaa dowladda iyo shacabkeeda, odayaasheeda, aqoon-yahankeeda, culimadeeda. barnaamijkan marka aniga 150ka markaan gobolka u furo, lacagtii ay qurba joogtu bixisay dowladda dadka u shaqeeyana 3 qaybood baa loo kala qaaday say u kala lacag badan yihiin. taajiriintana 3 baa loo kala qaaday ee deegaanka joogta. okay, dadka loolayda ana iyo geeleyda iyo arigana 3 baa loo kala qaadi, beerleyda 4. okay, ninka waalan ama ninka jiran ama ninka derbiga seexday isagana barnaamijka uu ku jiraa. oo khiyaaray waxaan u talagalay kii taajirka iyo kii qurba joogta iyo kii ariga iyo geel lahaa ee micinka intuu siiyo inuu ka qaato. for example, ka taajirkii intuu 5,000 siiyo ama 1,000 siiyo inuu 100 ka qaato. taajirka labaad inuu 500 siiyo uu 50 ka qaato. ka kale inuu 200 siiyo uu 20 ka qaato. mid inuu siiyo 10 uu riyaal ka qaato. okay, marka qof laga tagayo ma jiro. marka qaaraanka intaa la eg ayaan rabaa dowladda iyo culimada iyo odayaasha qabiilka inay ansixiyaan oo qolo kasta meeshay toga jarareed iyo faafankaga aadeen tahay lagu bixinayo. marka intaa aan dhammaystira gaajada insha allah haddana waxaan u bedelaynaa dadka af Soomaali ku hadla ama gobolka Oromada ama Tigreega ama Xamaarada, yacni Afrika inuu sii soconaynaa. barnaamijkan waxaan rabaa inuu adduunka wada gaadho, laakiin waxaan rabaa inuu meeshan ka bilowdo. ikhyaaray, odayaashiyow, culimadiiyow, dadkaygiiyow, barnaamijkan iga yeela. okay, projectkeena iga aqbala. xoolahan aan idin wado markaan intaa ka bixiyo 150kana waa 1 milyan iyo maxaan ku dhahaa 600,000 mise 500,000 sarafku sud yahay. haddaan si kale u dhigo 50,000 oo barakaysan oo ah systemka aan ku helay ama aan ku bixiyay system cajiib ah. ha raadinina xoolo banaanka idinka yimaada.
konton kaa kun oo idin siiyo waxay ka qaalisan tahay ka fiican tahay ka barakaban tahay 50 milyan oo dollar haddaad sugtaan xoolo banaanka idinka yimaada xeelad kale iyo xaaraan kale u wataa nin kastoo gobolkaad ka soo jeedo projectiga aan qoray ee diyaariyay ee diyaarka iga qaata bulshooy haddii ay hal sano gudahood aad barnaamijka qaadataan lama arkayo nin af Soomaali ku hadla oo faqiir ah oo cunto la'aan ama gaajo u dhimatay ma arkaysaan xoolo iyo geel iyo ari iyo dameero idinka dhinta dib dambe abaar dabar dheer la yidhaaho oo dambe ma maqlaysaan reetolkayow ree Soomaali dadkii af Soomaali ku hadlayo barnaamijkan waxaan u gudbinayaa Afrika maxaa ka dhigay xeradii gaajada Soomaali maxaa ka dhigay xeradii gaajada wax alla waxaan idinka rabaa ma jirto dawladda iyo shacabkeeda waxaan ka rabaa barnaamijkan inay qaataan lacagtiina waxay taallaa kaax ee saynu u xallinaa lacagtan hafalina lacag iyo projecti weyn oo barnaamijkeedii ka yimaada waxaan idin wadaa xisaab barakaysan iyo aqli barakaysan iyo xigmad barakaysan jaamacadda cagaaran kuliyadda dhaandaba gaale naaso hooyo waa imisa dhibic dhaqaale dhibic indhiso dhammaystirka gaajada barnaamijkan waa barnaamij barakaysan beel yahayn ma qaadanaysaan reetolkayow ma qaadanaysaan ree aadan turaabow ma qaadanaysaan hal sano caruur baan leeyahay oo ii baahan oo 7-8 ah oo kulli sport ciyaara way ka go'an tahay waxaan idinku talagalay hal sano idaan wax idin baro oona ku xidhnayn qabiil iyo shakhsi iyo nin jeclaysi nin dambe oo gaajaysan ma arkaysaan oo barnaamijkan marka wuxuu wataa 150ka wuxuu wataa hadana nin kasta wixii ilaahay quraanka ku sheegay hadduu qofku nadar galo sakaatul fitri sakada la bixinayo ay shuruud oo qofka bini'aadanka wax lagu waajibiyo wuxuu ku bixinayaa meesha ku bixinaya يعني gobolkiisii ka tirsan ku bixinaya haday saka tahay waxaan aaminsan haddaan si kale kugu sheego in sakaatul fidriga la bixiyo gobol kasta ama qabiil kasta uu bixiyo in aad projectigan ka samayno inuu noqonayo dhammaystirka gaajada bal $10 ee sakaatul bixisay hadduu dadkaagii iyo xoolahaagii iyo geelaagii iyo arigaagii iyo dhuraagii iyo kulli ka saaro gaajada soo nimca fashuuq ma soo nimca ma haddaba barnaamijkan wuxuu wataa xisaab barakaysan projectigan waxaan u soo gudbiyay dawladda intaas oo jeer waa yaabe maxay la qaadan laadahay hadda anigiiba imid oo jooga oo tiirka soo bixiyay oo isbiilaya oo haddana lacag idinku daraya oo haddana baritaankii sida dameerka idinku shaqaynaya war maxaa si idinka okay maxaa si idinka haddii intan aan idin weydiiyay biqil dhibic meeqay ku biqishaa aydaan haynin iminkaan idin baraya oo wada baranayna oo inu qorayna iminkaynu ogaan kastaa geed kasta oo deegaankiina ka baxa meeqa dhibic roob ayuu ku biqlaa okay barnaamijka waxaa la socotay oo haddana la socon doonta wargeed kasta oo wadankiina ka baxa meequu ku biqlaa meequu noolaadaa meequu xiiskiisa uu tagaa ma habeenkiibuu koraa mise maalintiibuu koraa ma inta u dhaxaysuu koraa ikhyaaray geedku goormu koraa barnaamijkani waa dhibic dhaqaale aan dhammaad lahayn waa inoo soconaya biidnillaahi kariim codsigan waxaan filayaa in shacabka iyo dowladduba ay qaadato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu